ka shanaad ama su-aasha shanaad waxay leedahay hooyo waayeel ah ayaa xushmad darteed gacanta inay igu salaamto damcday ee haddaan salaamo diintu maxay ka qabtaa? asalku ma banaana. nabigeenana calayhi salaatu wassalaam si cad buu u xaaraantinimeeyey qof dumaroo ninka ajnabi ka ah inuu khiyaarkiisa iyo rabitaankiisa ku taabto. yaraan iyo weynaanna lama kala qaadin. waxay daruuraad ay yimaadaan iyo baabkeeda xaaraanta banaysa. nabigana alay slam mar wuxuu ku tilmaamay gacanta ragga iyo dumarka iyo ragga ajnabiga ee gacmahoodu isgaarayaan ama taabanaya ama qabanaya min jinsi zina inay ka mid tahay. waa ka ilaha kutiba cala bni aadama xaduhu min azina laa maxaala. fa zina alcayni nadar wa zina alyadi lbatsh. gacanta zinadeedu taabashada iyo qabashada wey iyo wixii lamid a tuujinaya dheh. markana xadiid sixadiisa culimmada muran ka jira waa kii lahaa in badanoo culimmada waa saxiix ay leeyihiin gacantaadu qof dumaro kaa xaaraana inay taabato waxaa kaa khayr badan musbaal halkaa intii lagaga dhufta dhinaca kale inuu kaga baxo. saas darteed waa yeelnimada xushmaddu waxaa ka horeeya xaqa ilaahay ee xaaraantinimadu xaaraantinimay. iyaduna xaqa ay leedahay waxaa weeye in wixii dembi ka imanaya looga digo oo dembiga la yidhaahda sidan ma banaana ee iska ilaali. in iyada dembi laga ilaaliyo oo laga badbaadiyo adigana naftaada aad dembi ka badbaadisa waa waajib. waxaa muhima dadka inaad qofka loo sheego xushmaddu waxay ku jirtaa rabbi ka cabsiga, xaaraanta iyo dembigoo la iska ilaaliyo. macsiyana qofna laguma ateeco. qof iska waayeele iska daaye waalidkaabaan laga ateecin wax macsiya dembi ah oo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati illah. dembi ilah waxa lagaga gelaya qofna laguma ateeco, qofna lagama yeelo. si harayga wanaagsan iyo si tartiiba ugu sheegna waa qadiyad gaara. inaad qofkii dembigii adoo khiyaarka oon lagu qasbin u samaysay hebel dartii oon daruuraad jirinna masale kale wey. saa darteed ma banaana waalidkaa waayeelkaasna si erey wanaagsan iyo tartiiba in wax loogu sheego u baahan yahay. wabillahi towfiiq.